waxaa magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan lagu qabtay xaflad lagu furayay xarun cusub ay yeelan doonto jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Suudaan. Furitaanka guriga jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Suudaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday safaaradda Soomaaliya, ardayda wax ka barata waddanka Suudaan iyo jaaliyadda ku dhaqan waddankan. muddo ku dhow 150 sano kadib ayay noqonaysaa markii ugu horeysay oo jaaliyad Soomaaliyeed ee xarun lagu adeego jaaliyadda Soomaaliyeed laga hirgeliyo caasimadda waddanka Suudaan ee Khartoum. sidoo kale xubnihii ka socday safaaradda, jaaliyadda iyo ardayda ka soo qayb galay furitaanka ayaa dhammaan sheegay in arrintan ay tahay arrin bogaadin mudan maadaama jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Suudaan ay yeelatay goob loogu adeego ay ku kulmi karaan. maanta maalin oo hadal maahan, waa maalin mudan in maxaa ku raada la xuso, waliba maalin astaan in laga dhigo oo sanad markay jirsataba aynu dabaaldegno. waa maalin qiimo badan, waa maalin farxad leh, waa maalin aan dhihi karo astaan bay noo noqonaysaa. runtii jaaliyadda waxaan u soo jeedinayaa ammaan iyo bogaadin. waxaan leeyahay rafactum ra'sana, madaxeedna ayaad kor u qaadeen. howl maxaa ku raada in badan ay u baahneen aan sugaynay ayaad inoo qabateen. jaaliyaddu waa run, waa waxa weeye mimbar shacbi waaye, safaaraduna waa diblomaasiya, iyadaa ka sokayso, iyaday tahay baahida ardayda inay ka warqabaan, inay baahida ardayda iyo isku xirkooda iyo wadajirkooda ay ka shaqeeyaan. waxaa idin leeyahay waqti